Sallaanka nolosha kuma koraysid dhayal jidka guushana wax kuma daadsano. Mararka qaar waxaanu ku qasbannahay in aan ku istaagno caqabado xanuun kulul si aynu yoolkeena u gaadhno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ha kala hadlin dadka dareenkaaga. Dadka qaar ma fahmayaan luqadaas. Kula hadal caqligaaga iyo qalbigaaga, sababtoo ah qof waliba ma lahan qalbigaaga oo kale, dadkoo idinla ma lahan caqligaaga oo kale. Noloshu ma ahan mid dheer si aan wax kasta u tijaabino, mana ahan mid gaaban si aan wax kasta u xasuusanno, balse way qurux badan tahay haddaan ogaano inaysan waxba ahayn. Dad badan ayaa waxaa noloshooda qaraadheeyay sifooyin qurux badan oo ay ka akhristeen bay ku qiyaaseen qofkii ay wada noolaayeen. Qalinku wuxuu kulmiyaa sifooyin aan abuurka ku kulmin. Noloshaada iska iimaanso oo iska quruxso, hana ku dabaqin ashqaraarka hal abuur ku qoro. Ha ka caajisin, hana isdhiibin. Halganka aad maanta ku jirto wuxuu kuu diyaarinayaa awoodda aad berri u baahan tahay. Dhib kasta oo ku soo martay waxay fursad u ahayd koritaankaaga qofnimo. Adiga oon hadlin, cidda fahmi karta doonistaada nooca ay tahay, welibana u dareemaysa sida aad u dareemayso si ka weyn, ayaa mudan inaad waqtigaaga iyo qalbigaaga u hibayso. U fikir si fog, u hadal si deggan, u soco si tartiib ah, una jeclow si badan. U dhoola caddee si joogto ah, u shaqayso si adag, una bixi si qarsoon, una naxariiso si guud. Karaamada qofnimadaadu waxay ku jirtaa markaad naftaada u noolaato ee aadan dad kale u noolaan. Ha noqon addoon adduunyo ee noqo addoon Alle caabuda oo adduunyada ha ku mashquulin. Noloshaada ha raacinin cidna intaad dunida joogtid, xitaa hooskaagu kaa hadhayaa xilliyada mugdiga. Noloshu waa sida adiga oo dhul aadan aqoon fasax u taga. Marka hore waad welweli ood isweydiin waxaad kala kulmi, marka xigta waad la qabsan, markaad ka soo tegaysidna waxaad jeclaysan in fasaxa laguu sii dheereeyo. Markaad dunida ku soo beertay waad oynaysay, balse markuu qofku weynaado qofna ma jecla dunida inuu si dhib yar uga tago. Qorraxdu 2 jeer ma soo wada baxdo maalintii, noloshuna jaanis labaad ma leh ee ka faa'iidayso maanta. Kala badh xaragadaadu waxay ku jirtaa hadalkaaga, inta kalena waxay ku jirtaa akhlaaqdaada. Hadalka naxariista leh uma baahna turjumaad, way kugu filan tahay inaad fiiriso wejiga qofka yidhi si aad u fahanto dareenkiisa, xitaa haddii uu kugula hadlo luqad aadan aqoonin. Dhibtu waa furaha fikirka, fikirkuna waa furaha aqoonta, aqoontuna waa furaha guusha, guushuna waa furaha badhaadhaha. Fariidnimadu ma aha wax aad ku waarayso ama aad ahaanayso weligaa. U adkayso mar walba, dhib walba oo ku soo marta, shay walba wuu isbedeli doonaa. Dulqaad, duruuf iyo daryarnimo. Xaalad walba oo kula soo dirista ha iska lumin rajada, waayo marka ay qorraxdu dhacdaba xidigaha ayaa soo baxa. Mid ka mid ah go'aamada geesinimada leh ee noloshaada qaadato ayaa ah in aad ka tanaasusho wax kasta oo qalbigaaga dhaawacaya.